السلام الله عليكم ولا يا روادين سلام دمانتين maanta waxaan haday video aad u muhiim ah waxaan ka jawaabay su'aashaadii cunto fiican waxa la cunaad sheegtay mid xunna la iska dhaafo maxay tahay cuntada wanaagsan oo cunna maxay tahay mid xun oo iska dhaafna waxaan rabaa inaan idin sheego cuntooyinka u xun oo caafimaadkaaga aad ugu xun oo ka dhigaya caajiska iyo culayska kugu keenaya caafimaadkaaga qatarta ku ah inaan maanta video aan kugu sheego marka videoga dhamaysid hadii fridge kugu jirto iska daad hadii ku agtaalo tuur isku ku daad midda u horeyso rabaa inaan ku sheego waa sonkortu waa waxa loo yaqaan empty calories way wax nafaqa oo ay jirka bini'aadamka siiso oo uu ka helo lama arko markii laga reebo inay energy siiso taasuna sidoo kale sonkortu waxay keentaa cudurro fara badan sida dhiig karka cudurka macaanka ama sonkorowga ama waxa loo yaqaan type 2 diabetes midka loo yaqaan marka sonkorta iska jooji sonkorta kaliya ma ahan waxyaabaha sonkorta ku badan tahay oo dhan waad iska dhaafaysaa sida macmacaanka xalwada buskutka macmacaan oo dhan iska daadi waxaadna ku ogaan kartaa waxyaabaha sonkorta ku badan tahay sidan sidoo kale sonkortu waxa ay ku badan tahay cabitaanada juiceska soodada sidoo kale sonkorta ayaa aad ugu fara badan tahay waxaana leedahay magacyo kala duwan oo aad ka akhrin kartid labelka sida aad screenka ka aragtid marka waxa laga doonayaa inaad iska joojisid sonkorta iyo waxyaabaha ay ku badan tahay sida macmacaanka cabitaanka bedelkooda waxaad cuntaa cunto nafaqo leh cabitaankana waxaad cabtaa biyaha cad ayaga ayaa kaaga wanaagsan cuntada labaad oo rabo inaad iska dhaaftid waa cuntada ay ku badan tahay saliida waxyaabaha la shiilay sida chipsiga ama waxa frieska loo yaqaan oo kale hilibka la shiilay inaad iska dhaaftid waa maxaa yeelay markii cuntada la shiilo saliid lagu gubo waxa ka dhasha maado qatar ku ah taas oo keenta cudurka kansarka waxa laga doonayaa inaad aad shiilin cuntadaada bedelkeedii aad karkarisid ama aad qaabab kale u diyaarsatid maxaa yeelay cuntada la shiilay saliiduna way dhaxgalaysaa nafaqadii way dilaysaa waxayna gubanaysaa waxyaabaha madowga ah aragtid ama oo brownka ah kor ka fulo markii saliida cuntada lagu shiilo sun way waxa laga qaadaa kansarka marka waxa laga doonayaa inaad cuntada shiilan ama waxyaabaha saliida lagu shiilay oo dhan iska fogaatid sidoo kale markaad suuqa aadid waxaad iska fogaanaysaa cuntooyinka dufan ku badan sida cookieska oo kale pizzada oo kale burgerska oo kale especially haddii cuntada ay tahay mid seejlan oo ay ku qoran tahay trans fat waxyaabaha loo yaqaan sida aad screenka ka aragtiin haddii ay trans fat ku qoran tahay ka dheerow trans fatku waxa laga qaadaa cudurro badan oo ku dhaca wadnaha tan saddexaad oo rab inaad ka fogaatid waa cuntada waxyaabaha la process gareeyay daqiiqa laga dhigay sida burka oo kale marka burka waxyaabihii laga sameeyay sida canjeeladii oo kale burkii cad bahalkan iyo breadkii ama bahalkan iyo rootigii waxyaabihii laga sameeyay daqiiqa markii la shiido burka nafaqadii ayaa lumaysa waxa kale oo luminaysa wax aad u muhiim ah oo loo yaqaan fiberka oo caloosha aad ugu fiican sidaas darteed waxa laga doonayaa inaad iska dhaaftid burka iyo waxyaabaha kale oo daqiiqa laga dhigay iyo waxyaabihii laga sameeyay ma ay ahaan ku fiican sidaas darteed waxaad cuntaa whole grains sida bahalkan la yiraahdo cuntadii waxyaabihii oo dhameystiran sidii waxa cunaysaa oo kale bariiskii masagadii galeydii listigu uu dheeryahay screenka ayaan idinku soo saari doonaa videoga soo socda waxaan uga hadli doonaa cuntooyinka aad cunaysid kuwa ku wanaagsan laakiin hadda sonkorta iska dhaaf waxyaabaha la shiilo saliid ku badan tahay iska dhaaf midka u dambeeyana waxyaabaha daqiiqa ah ama refined carbs waxa loo yaqaan ayadana waad ka dheeraanaysaa waa maadsantihiin wixii su'aalaad ka qabtiin way soo weydiin kartaa wabillahi tawfiiq والسلام عليكم